واتاي ساعة وزير waxaa jirta lacag faalsa ah oo maamulka Puntland soo daabacay oo deegaamadii qaar kamid ah soo gashay dawladda dhexe ee dalkuna ka digtay lacagtaas ka maamul ahaan sidee baad uga warhaysaan oo xaaladda deegaanka والله خطر دغاله oo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ee shil Soomaaliga isticmaasha wax khatar ku ah oo aragnaa wax dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed baabiinayaan oo aragnaa waxaan u aragnaa in aynan taasi xalaal iyo sharci ahayn dalka qaran iyo dhaqaale ay tahay aad iyo aad baan uga xunnahay dhammaan shacabka reer Khartoumana lacagta iyo wixii la mid ah la noocaba waxaan uga digaynaa inay isticmaalaan inay ka taxadiraan baan rabnaa inay ka feejignaadaan baan rabnaa aad iyo aad baan uga xunnahay in xoolahooda iyo hantidooda lagu qaato lacag aan asal ahayn waxyeeladeeda ay leedahay waxaan u malaynayaa maanta Soomaali dawlad bay leedahay dawladda waxay leedahay budget waxay leedahay waxaan dawladda dhexe iyo budget dhexe aan ka sharci garaysnayna dalkana kuma socon karto cid raalli ka noqonaysana ma jirto xilligii waxaan lagu kacayna waxaa la moodayay inay soo dhamaatay waa uga digaynaa dadka iyaga iyo ummadda Soomaaliyeedba